بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muuqaalka kan ama cashirka kan waxaan rabaa inaan ku xasuusiyo arrin dad badan oo kamid ah anaga aysan xasuusan ama ay loobeen waa arrin salaada iyo masjidka khuseeya oo dhinaca kalena caafimaadkeena iyo jirkeena khuseeya waxa weeye sababta nabiga calayhi salaatu wasalaam nooga reebay inaynu sidaa dhahno fara isgashiga inuu qofku fara isgeliyo ama uu sidaan dhahaba ruuxu waaye aanu caruurta ah waxaa laga yaabaa saas inuu geedi iyo awr ku matali jiray dadka xasuustay yacni qofku markuu salaada joogo ama salaad u socdo ama masaajidka uu joogo salaad uu tukanayo ama salaad uu ku dhex jiraba inuu sidaan yiraahdo ama uu saan dhaho ama uu yacni saa u juciyo sharciga islaamku waa reebay sababtuu reebay waan rabaa casharka kanana aan ku fahansiiyo biidn illah laana wax walba sabab iyo cilla ayuu leeyahay mararka qaarkood waan fahmi karnaa marna ma fahmayno rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiis sugani qofka weyse qaata kadibna weysadiisa wanaajiya yacni weyse sharciga waafaqsan waan degdeg lahayn ayaa loo jeedaa kadibna u qasda oo bimacnaa aada xagga ay meesha lagu tukanayo ama masaajidka yuusan farihiisa isdhexgelin ayaa nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam xadiis kale wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam mar hadduu qofku weysaysto uu niyeysto inuu masaajidka aado sidaan yuusan dhihin ilaa uu soo noqonayo yacni salaada dhexdeeda iyo masaajidka dhexdiisa ayaan la ogolayn oo habboonayn ilaa dadka qaar baa sameeyay markay salaada ku jiraan way dhucsadaanba yacni sidii qof aan salaad ku jirin ayuu u muuqdaa qofku awalan marka ugu horeysa qofkaani arrinka ka sameynaya ima inuu u sameynayo ciyaar ama uu dhucsanayo ama ciyaar buu sameynaya oo falaadkiisa weeyaba waa buuxa ka helayba intuu salaadaasi khaarijkeeda ku maqan yahay oo banaanka jiro ayuu faraha saan u dhucsanaya ama saa isu gelinaya ama saa u dhahaya marka inuu u bartay oo markuu salaadii soo aaday uma uu salaadii galay ama masaajidka jiro is iloobo uu sidaa yiraahdo waa ciyaar ama inuu iskaga dhucsanayo talaacubka iyo ciyaarta noocaasna ma fiicna masaajidka dhexdiisa iyo salaad dhexdeedaba saas laajigeed baa rasuulka ilaahay reebay calayhi salaatu wasalaam lianna taasi waxay tusaysaa khushuuc la-aan qofka salaadiisu saameynta ku yeelato ayay hadba khushuucdu intay ilaag tahay soo saartaa mar haddaad marka xaaladii masaajidka aad ka baxsanayd iyo xaaladda masaajid ku jirtid ee salaad ku jirtay ama salaad sugaysid ay isku ka mid noqdaan waa mushkilad qof masaajid soo aaday waa qof meel sharfan soo aaday meelihii ilaahay ugu jeclaa dhulkiisa walidaalika ilaahay kula hadlayaa mar kastoo tilaabo qaadayso masaajid u socotay intaa ku jirtid qofka xitaa masaajidka intuu ku tukaday iska dhex fadhiyay salaad kale ku sugayay wuxuu la mid yahay sida asoo salaadba ku jira maanta oo dhan يعني تنو تكنا وكبحيا تنو حرنا وكبحيا يعني نمعوين كنوعاسا أيو قفك كان هلماميا وان عياري أو دعساني أو باشاري أو قعماه إزقليني مركا هداد مساجد آدي وادو ويساقادتي ومساجدك أسعوتيد وادوني سينا صلاة كتوكتيد إسكا إلى علي عمل كنوعانا عمل في عن ما عملك كان خشوع لامبو كورديا احترامك إيا قدرك صلاة دا أيو ميل كساريا masaajidka markaad gashayna waaba kasii daran yahay waxaabuu kasii daran yahay markaad salaad ku jirtidba salaadaadiibuu waxyeeleynaya qaanuunkeedii iyo xuduudeediibuu meesha ka saaraya qof salaad ku jira uma ekid leanna maxaa yeelay in badan baynu aragnay dad tukanaya oo qacmaha saa isu gelgelinaya oo jumcsanaya waxaa kaloo yacni qofku markuu masaajid ku jiro weyse qabo salaadna uu sugaya hadduu sidaan dhaho cilmigu u sheegay in qofkaani uu saa hadduu sameeyo ama uu saan sameeyo ay hurdo ama yani caajis hordhac u tahay mar haddii hurdo iyo caajis uu qofka soo wajahana in weysadiisii jabtaa macquula waxyaalaha noocaas iyadoo laga hortagayo ayaa sharcigu ku leeyahay intaa salaad ku jirtid ama salaad sugaysid ama masaajid ku jirtid ama masaajid u socotid sidaanay ha samayn hana yeelin maxaa yeelay meel ka dhac ayay salaadaada iyo khushuucdaada iyo cibaadadaada ku tahay mar walba waxaad ogaataan dadkaygiyo allah idan barakeeye in sharcigaadu يعني كلية هي مناسبة مركز شوكتي وحها سمين وحاسا كو هبون إن شرعي هذا كلية هي وحان إسكا إلالي أديكي سكو في عنين هادنا هالكان كوما هبونا وحالي هذا قفك ضدك أقوى ناكسن وقفك قرته وحا أوي هيكو مركو ذاتي دي سي شخصية دي سكرته يعني سي فهمه وحا أوي هي
markuu wax u yahayna wuxuu fahmayaa hadalka ku haboon meeshan iyo midkan ku haboonayn hadalka sanadkiisa in la helay yani shardi maahan waxa laga yaabaa hadalkan dadkii aan mudnay inay ku hadlaan ama dadkii hadalkan mudnaa ay ka tageen oo aysan daryeelay waxa la rabaa marka masaajidka joogtid inaad ka duwan tahay waqtiyada kale meelaha kale aad joogtid inkastoo dadka qaar maanta ay leeyihiin markaan rafaado oo adduunyada ciriirigeeda arko oo aan niyadda uga jabto oo arko yani dad badan oo guryahoodii joogo oo quruxsanaya aan dhaha bal guriga ilaahay niyadda kusoo dhiso ayaa masaajidda samankan waxay leeyihiin waxaad arkaysaa masaajidkiiba inuu hoteelada iyo guryaha ugu qaalisan adduunka ugu quruxsan inuu ka quruxsan yahay markaasaa sii niyad jawaab bay leeyihiin leanna maxaa yeelay faqriga iyo dhibaatada iyo culayska ay haystaan masaajidkan kusoo baabi'iyo oo aan uga soo baxay ahayd masaajidkii wuxuu ogyahay meel faakaysi oo quruxsan marka niyadda iga sii jabayso guriga ilaahay baa saan loo galay aniga gurigayga maxaa saan u galay ama nafteeda u galay waayihii hore laakiin masaajidda ayaa niyadda lagu soo dhisan jiray ama haddii alla kuuraya murugada la iskaga soo qaadi jiray xitaa hadda maanta hadda dhib ku qabsada aad iska baxdinta weyse qaadatid oo rabti ilaahay dhibka ka saaro masaajid laba raac ku iska fariisatid raaxo iyo deganaanshaad dareemaysaa waqtiyada kale ee aad meelaha kala joogtid ka duwan marka waxaa la rabaa raaxadaas iyo khushuucdaas iyo deganaanshahaas in laga raadiyo masaajidda ee aan laga raadin waxyaalaha suuqa lagu sameeyo meesha koobaad ee ilaahay dhulkiisa ugu jecel yahay waa masjid meesha ilaahay ugu nicib yahayna waa suuq لأن سوق وحا الشيطان كو دغتا وكميه سارورتي سدتيد با اسلام wuxuu ku leeyahay suuqa qofka ugu horeeya ee gala ee furaha noqon qofka ugu dambeeya ka soo baxana ha noqon dhexdhexaadka ku jir khayrul umuri awsatuha meelaha ugu khayr badan arrimaha waa meesha ugu dhaxaysa dada marka suuqa waxay moodaan qofka ugu horeeya inuu noqdo barako ku helayo rasuulka ilaahay sallallahu alayhi wasallam leeyna shaytaan baa xala kumiis dhigtay caalamkiisa meesha ka taagan shaytaankii baaba markaasi noqonaysa hadii alla ku roonyaa mid meel cila u yaala ducadii suuqana akhriso saas dadteed ba sharci ku leeyahay meel kasta waxaan akhriso suuq maxaa lagu magacaabay leeyna socodkiisa badan suuqa waxa suuq lagu magacaabay luga badan baa ku jira luga badan baa taagtaagan luga badan baa soconay saas dadku isku damarayaan waxa saxmadu u badan tahay saas darteed baa loo yiri suuq shaydaanka iyo khiyaanada iyo beenta iyo qaylada iyo rafaadka iyo xasadka iyo tartanka iyo waxa soo baa ku badan mar hada suuqaasi mashquulkiisa ka soo baxdid oo dukaankaadi meeshaada soo xirtay ama iska soo tagtid aad masaajid imaatay waxa la rabaa meesha hore aad joogtay inay kaaga duwan tahay meeshaan ana dareentay inay ka qiimo badan tahay halka kan oo meeshaan aad joogto masaajidka uu qiimo badan yahay ilaaliisiina xurmadiisa xurmo ka mudan yahay xurmo la'aantu waxay keenaysaa inaad cibaadada dhadhansan wabitaali iimaankaadu uu siyaadin dad badan maxay yani cibaadadu ugu dhadhami laadahay ay u saameyn laadahay walow meel kasta ay tahay dhul lagu tukado meel kasta yani waxa laga dhigay rasuulkii ummadeeda looga dhigay meel lagu tukado dhulkana lagu tahaara qaato ma sha Allah nimcadaas way diinta fudud way markaas anaga nolosha isku xiriirinay cibaadada isku xiriirinay guriga isku xiriirinay waxaasinimada iyo tartanka mushkilada ay maatay barakada marka yaraanaysa kadibna la kala garanayo qofkii dhaalimka iyo kii madluumka kii xaasidka kii la xasday kii xaq ka maqnaa kii xaq qaatay wixii dhan baa isku dhex yani yaacay arrimii dhan baa isku galay marka farahan la isgelinayo sharxumay tilmaamana isgelin saysan noloshaadu saa u noqon oo madaxa isku gelin aad baad u mahadsantihiin kaliya waxaan rabaa inaan xasuusiyo waxyaalaha sharcigaadu uu ku barayo iyo nolosha diintaadu ku barayso kow waxaan rabaa inaan mar walba idin xasuusino inaynu fahno dhamaanteen daatadeena ee shakhsiyadnimadeeda waxay u nooshahay inaynu isku hormarino aayad waxay sheegtay ama arrin ay ka hadashay ama xadiis arrin uu ka hadlay ama cilmiga kale ee maadiga ee dabiiciga ee tijaabada wuxuu ka hadlay ama naftaada iyo jirkaada wuxuu tilmaamay ama habeenadaas iyo waqtiyadaas iyo saacadaha isgedgedinaya ee ku soo maray waxa dhacaya haday qiso noqoto iyo dhacdo kaleba inaynu idin la wadaagno saad uga faa'iido cibro faa'iido wax kale adiga noloshaada khusay saynu u garanno yani garaadkeena hadba intuu leegyahay laana dhacdooyinka adduunka ka dhacaya waxa la rabaa inaad ku garatid caqligaaga hadba intuu leegyahay يعني تجابوين كوحيالها دعي إن تكفى إذا سال الدنيا سادرسيد برسول الله عليه قف مؤمن قد لبتشر لقى مقانينه يعني لبتشر وقمت دقي ومحلو تشيدا يعني مالك الدنيا لقى موضوع ماشي أنا شر لو دقي إسلامشي أنا سوء أديد ما قد كي شر لو قلي إن إسلامركي ما أنت كسر دون تهول كلا لو قضوا دبعت أيضا لفتك هذا مركا أساس دته برسول الله عليه الصلاة والسلام مؤمن قد لبتشر لقى مقانينه mar hadii meesha ku khaldamo la qalafsaday la furtay waa inuu taxadaraa mar walba
noloshiisana ka fakara dad qaar waxaad arkaysaa inaysan naftooda wanaag bala jeclayn bala rabin ba iska dunuliyay qof kale see la rabaya marka waxaa la rabaa naruurada in soo celiyo niyada la soo dhiso dadka yacni qulubtooda lagu beero fahamka waasica ee nolosha islaamku u leeyahay si aan u garanno hadba heerkan ka taaganahay sharcigeenaas iyo nolosha aakhirada banteeno jirto midda adduunyo si aan uga faa'iideysano meel kasta ku sugantihiin allah idin xafido intaas ma rabay muuqaalka kan in aan idinku xasuusino baarakallahu fiikum